si aynu kugu soo gudbino adna aad u heshid wararka iyo warbixinada Hiilwa Official Channel waxaan ka codsanaynaa inaad saartid subscribe channelkan. bararka noosida la xaqiijiyay ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka Koonfureed ee magaalada Gaalkacyo waxaana sida la xaqiijiyay goobta uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha qaybta 12aad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed rasaas xoog leh ayaa weli laga maqlayaa gudaha hoteelka waxaana muddo ka badan 30 daqiiqo soconaysa rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan agagaarka hoteelka uu qaraxa ka dhacay iyo sidoo kale kooxa laga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen isla markaana la socdeen gaariga qaraxay wararka qaar ayaa xaqiijinaya in dad ay wax ku noqdeen weerarkaasi sidoo kalena isbitaalada qaar ee magaalada Gaalkacyo la sameeyay xiriir dhow ayaa inoo xaqiijiyay inay jiraan khasaare ka dhashay weerarkaasi wararka ayaa intaas ku daraya in laga cabsi qabo in gudaha hoteelka ay ku jiraan xubno ka tirsan dagaalamayaasha fuliyay weerarkan walow aan loogeyn cid ka dambaysa weerarkan si kastaba ha ahaatee weerarkan iyo weerarada la midka ah ayaa inta badan waxa fuliya kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan kula jirta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo taageerayaashooda si aynu kugu soo gudbino adna aad u heshid wararka iyo warbixinada Hiilwa Official Channel waxaan ka codsanaynaa inaad saartid subscribe channelkan.